subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Ramadaan wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo naga maqlaysaan waa subax talaado ah bisha Mayna waa 12 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakiya caalamkana waxaa ka mid ah dadka danyarta xaafadda Isliya magaalada Nairobi oo sameeyay dibadbaxay kaga cabanayaan xayiraadii ay dhawaan dawladdu saartay. annaga shaqaalaanahay dukaamankii markii laga xiro xagee ka shaqaysanaynaa maxaa bariis la cunaya laba maalin bis baahi lagu dareen 15 bari xagee joogtaa. madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland oo cambaareeyay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. waxaad kaloo maqli doontaan qaar ka mid ah dalalka carabta oo cambaareeyay tallaabooyin uu dalka Turkigu ka wado dalka Liibiya. cayaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. dowladda Maraykanka ayaa dowladda Iiraan ku booriday Isniintii shalay inay soo dirto dayuurad gaara si ay u qaado 11 muwaadin oo u dhashay Iiraan kuwaasoo Washington ay doonayso inay musaafuriso. Maraykanka ayaa Iiraan ku eedeeyey inay daahinayso hawsha musaafurinta. Ken Cuccinelli oo ku-xigeenka xogeyaha amniga gudaha Maraykanka ayaa fariin dhinaca Twitterka ku qoray waxaan haynaa 11 muwaadin kuwaasoo sharci darro ku jooga kuwaasoo aan isku dayaynay inaan dalkiina ku soo celinno. waxaad tidhaahdeen waxaan doonaynaa inay soo noqdaan marka maxaad u soo diiri weydeen dayuurad gaar ah si aanu 11kan hal mar u soo celinna ayuu yidhi. Cuccinelli ayaa intaas ugu daray in Washington in muddo ah isku dayaysay inay celiso Cyrus Asgari oo ah professor cilmiga sayniska oo Iiraan u dhashay kaasoo dembi lagu waayay bishii November kadib markii lagu eedeeyey inuu xaday sir ganacsi hase yeeshee weli gacanta Maraykanka ku sii jiray. dhinaca kale Cuccinelli ayaanan soo hadal qaadin isweydaarsi dhinaca maxaabiista oo labada dal dhex mara arrin wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Jawaad Dariif uu Isniintii shalay sheegay inay Tehraan in muddo ahba diyaar u ahayd. labada dal ayaa xidhiidhkoodu go'ay muddo 40 sano ka hor ah. dhinaca wararka gudaha Maraykankana maamulka gaadiidka tareenada iyo basaska ee magaalada Washington DC ee xarunta Maraykanka ayaa Isniintii shalay sheegay inuu qorsheynayo inuu sii dheereeyo cafinta lacagtii tareenada iyo basaska lagu raacayay ilaa iyo guga sanadka 2021 xilli uu maamulku doonayo inuu si aayara u soo celiyo adeegiisii kadib markii xanuunka fayraska corona uu keenaa uu dilaacay. hay-adaha gaadiidka ee Maraykanka ayaa waxaa si xun u saameeyey amarada guryaha lagu nagaanayo taas oo rakaabkii aad hoos ugu dhigtay. koongareeska ayaa ansixiyey lacag dhan $25 bilyan bishii Abriil taasoo lagu caawinaya hay-adaha gaadiidka ee dalka iyadoo dhinaca caasimadan ay ku soo beegantay lacag in yar kor u dhaafaysa $1 bilyan. gaadiidka tareenada ayaa hoos u dhacay 95% halka adeegsiga basaskuna oo hoos u dhacay 70%. warkii caalamkuna intaas ayuu ku dhan yahay. mahadsanid Sandheere warkii caalamka ayaad dhegeystayaal maqlayseen halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. madaxtooyada maamul goboleedka Jubbaland ayaa si kulul uga hadashay xarig shalay magaalada Garbaharre ee gobolka Gedo loogu geystay gudoomiyihii degmada Garbaharre ee gobolkaasi Iimaan Cadow Kaarshe kaasoo la sheegay in isagoo gacmaha ka jeebaysan loo duuliyey magaalada Muqdisho. arrintan ayaa imaanaysa xilli maalmihii la soo dhaafay ay magaalada Garbaharre ay ku sugnaayeen saraakiil ka amar qaata madaxtooyada Soomaaliya oo uu hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Gedo macallimu iyo saraakiisha ciidamada xasilinta gobolka Gedo ee ka amar qaata dowladda federaalka ee Soomaaliya. madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa arrintaasi ku tilmaamay fal afduub ah isagoo ka digay inay dhibaato horseedo. waxaan aad iyo aad wax looga xumaado ah in dowladda dhexe Soomaaliya hay-adeeda nabad sugidda
ay waayadanba dhacdooyin isxagxaga ka waday gobolka Gedo kuwaas oo sharciga iyo heshiiska bulshada Soomaaliyeed iyo wada noolaanshaha iyo inay Soomaaliya hesho qaran taabaqaada lid ku ah intaba kadib markay go'aansadeen inay burburiyaan hay'adaha maamul amni garsoor ee ka jira gobolka Gedo ayaga oo isticmaalayo ciidamo qaran ah oo qaranka Soomaaliyeed abaabulay dhisay gobolka ka howlgalayay cadawga la dagaalamayay sharciga gacan siinayay u jaheeyay inay isla hay'adihii dawliga ahaa ku burburiyaan oo dalka ka dhisnaa in badan baan ka hadalnay caalamka ka hadlay golayaasha sharci dinta Soomaaliya ka hadlay dowlad goboleedka Jubbaland baa ka hadashay baaqiyo fara badan oo isxigxigay iyo talooyin baa ka soo baxay midna lama dhageysanin dhacdaas waa sii socotaa waxa ugu foosho xumeed waxay ahayd xarunta gobolka Gedo Garbaarey gudoomiyaheedii in maanta halkaa laga afduubay oo si xoog ah loo afduubay xorriyadana looga qaaday ninkaad maanta qori ku qabato si nidaam darro ah oo sharci darro ah oo adoon xaq u lahayn intaad xoog u sheegato asaa kula dhaqanto haddii dalkii buu kula leeyahay maalintiisuu ka beegsanayaa wuxuu yeeli lahaa buu yeelayaa maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland oo sidoo kale ka hadlay fatahaado ay webiyada Jubba iyo Daawo oo ka geysteen qaybo ka tirsan gobolka Gedo ayaa shirkiisa jaraa'id waxa uu ku sheegay inaan gargaar loo fidinin deegaanadaasi waxaa jira masiibooyin dabiici ah daadad baa jira webiyadii Jubba iyo Daawo labadaba waa fatahayaan maanta ugu dambeysay degmada Doolow degmooyinka Baardheere iyo Luuq iyo Buurdhuuba iyo horibay ugu jirtay cudur baa jira sideen isu kaashanaa fatahaadahaas sideen ummadayada ugu badbaadinaa khasaaraha noo geysanaya cudurka sideen iskaga ilaalinaa cadawgii nabadda iyo nolosha noo diido oo dhex fadhiyay sideen iskaga ilaalinaa arrintaas fatahaadaha iyo masiibada dabiiciga ah ayaa soo kacayo cudurrada jiro ilaahay annagoo la kaashanayno ummadda Soomaaliyeed meel kastoo lagu nool yahay in la iska kaashado arrimahaasna si degdeg ah wax looga qabto baana la ka baryaynaa annaga waxaan noo qorshaysnay maalinta beriteed inaan diyaarad u duulino Garbaarey deeq laga hortagayo cudurka koronaha wado degmooyinka aan geyno codkaasina waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland maxamuud sayid aadan oo xalay hadalkaasi ka sheegay magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna voasomali.com bogga VOA somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka cawayska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya ramadaan wanaagsan dhegeystayaal dadka danyartae ku dhaqan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa sameeyey dibadbax ay dowladda Kenya uga codsanayaan inay siiso cunto maadaama goobihii ay ka shaqaysan jireen xayiraad lagu soo rogay warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha VOA-da Intisaar Saalax Xuseen dad dibadbaxayaal ah oo ka cabanayay xayiraada lagu soo rogay xaafadda Soomaalida ee Islii ayaa isugu soo baxay degmada Kamakuji gaar ahaan deegaanka Section 3 dadkan ayaa waxay dowladda dalka Kenya ay ka dalbadeen in la soo gaaro gargaar cunno ah kadib markii dhawaan ay dowladda amar ku bixisay in aan la soo gali karin lagana bixi karin xaafadda Soomaalida ee Islii dadkan dibadbaxayay ayaa waxa ay siteen boorar ay ku qoran yihiin waxaan rabnaa cunno waxa ay sheegeen dadkan inay u soo shaqo tagi jireen xaafadda Soomaalida ee Islii Inaangu naitwa Mzee Hassan sisi hakuna kazi watu nazuia ndani ya jumba hakuna rashini jumbani hakuna kitu yoyote
shaqo ma haysano, dadka guryaha ayay ku jiraan, cuntana ma haysano. annaga shaqaalaan nahay, dukaamankii markii nala ka xiro xaggee ka shaqaysanaynaa? maxaa bariis la cunaya? 2 maalin besa baahi lagu dareen, 15 beri xaggee joogtaa? Tunaelewa hii ugonjwa iko, si hatuelewi. Maana yake ni kwamba watu wa Isli wamekubali hizo siku ambazo mnatupatia, lakini serikali usaidieni na chakula. Waanu fahansannahay in xanuunkan uu jiro, ma ahan inaynu fahansaneen. Dadka ku dhaqan Isliina waxay u hoggaansameen amarka dawladda, balse waxaan dawladda ka codsanaynaa inay cunto na siiso. Angalau hata tukikaa ndani kila mtu hayana. Laga soo bilaabo galinkii dambe ee maalintii Arbacada ahayd, markii dawladda dalka Kenya ay xayiraad ku soo rogtay xaafadda Soomaalida Isli, waxa ay soo tarayay cabashooyin dhowr ah oo ka imaanayay qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwaas oo ah in Isli ay tahay meesha ay ka heli jireen nolol maalmeedkooda. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi. dhinaca kalena wariyaasha Soomaalida ah ee ka howlgala warbaahinta magaalada Nairobi oo sheegay in uu saameeyay bandowga iyo xayiraadda ay dawladda Kenya ku soo rogtay xaafadda Isli ayaa sheegay in mararka qaar ay su'aalo kala duwan kala kulmaan ciidamada booliska ee ku sugan baraha kontaroolka ee laga soo galo xaafadda Isli. wariyaha VOA-da ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed oo la kulmay qaar ka mid ah saxafiyiintaasi ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi. cudurka coronavirus ayaa saameyn weyn ku yeeshay shaqada warbaahinta ee dalka Kenya. wariyayaasha ka howlgala warbaahinta gudaha Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa ka mid ah wariyayaasha uu shaqooyinkoodu saameeyay cudurka. inkastoo wariyayaasha ka howlgala magaalada Nairobi ay intooda badan weli ka shaqaynayaan xafiisyada xarumaha sidii caadadaba ahayd, haddana wariyayaasha ayaa sheegaya in xilliyada ay xafiisyada usoo shaqo tegayaan gaar ahaana xilliyada bandowga ay su'aalo kala kulmayaan laamaha ammaanka. Maxamed Yuusuf Colow oo ka mid ah wariyayaasha ka howlgala magaalada Nairobi ayaa sharaxaya saameynta ay dareemeen wariyayaasha iyo caqabadaha ay wariyayaasha la kulmaan saacadaha bandowga. waxaan xaafadda ku laaban jirnay ugu yaraan 3 saacadoodnimo ama 4 saacadoodnimo. waxaa dhacdaa in xitaa adigoo hoole ay ku dhiman yihiin oo aad shaqooyin kala doonayso inaad qabsato, meesha lagu gaaro 10 saac waa in alaabtahay diyaarsataa. dabcan waxaa laga yaabaa inaad marto ilaa iyo dhowr goobood oo markaasi laamaha amniga taagan yihiin. haddii kuwana aad ka badbaado, waxaa laga yaabaa in kuwa kale aysan ka badbaadi karin. qaar ka mid ah xarumaha warbaahinta ee ku yaala xaafadda Isli ayaa hakiyey jadwalkii maalinlaha ahaa ee shaqooyinkooda kadib markii xayiraadii dhowaan lagu soo rogay xaafadda Isli ay saamaysay dadkii wariyayaasha barnaamijyada kala qaybgeli jiray. Maxamed Xaaji Gool waa barnaamij soo saare ka howlgala idaacadda Midnimo oo ay bahwadaagna yihiin idaacadda VOA. saameyn weyn ayay nagu yeelatay xagga shaqada howlmaalmeedkaygii. guud ahaanba waxaan odhan karayaa waxaa istaagay dhammaanba barnaamijyadii aan soo saaranay oo maalinlaha ahaa, taasi oo ay ugu cad tahay xanibaad markaasi dhanka waxa weeye dadka, sababtoo ah dadku waxay ahaayeen dadkii aan wareysanay, marka way nagu adkaatay inaanu ishelno haddii ay noqon lahayd dhanka kulanka caadiga face to face-ka. taas way adag tahay. haddana waxaa adkaaday khabadkii laftigoodii. dadkii inta badan markaanu wacno waxayna leeyihiin jam baanu ku jiraa, hadda suurtagal maaha. marka waxa weeye waxay noqotay complicated ayay nagu noqotay arrintaas. xaggii barnaamijyada ayaa aada waxa weye nagu adag. marka waxaan odhan karnaa boqolkiiba waxa weeye 70 hoos ayay u dhaceen barnaamijyada aan soo saarnay. waxa kaloo aan ku daraya waxa weeye aan jecelahay sidaan la socno bil Ramadaan baa lagu jiraa. bisha Ramadaan way ka duwan yihiin bilooyinka kale maadaama dadka islaamka ay iyagu waxa weeye ay barnaamijyada ka samayn jireen dhanka waxa weeye sadaqada, oo dad waxaa jira ilaahay wax siiyey oo sadaqaysanayay oo ay u suurtageli weyday oo nala soo xiriiray inaan markaasi dadka waxa weeye aan ugu yaboona si markaasi ay u gudbiyaan wixii markaasi ay ugu talagaleen dadka waxa weeye fuqarada. marka taasa waxa weeye horta saameynta ugu weyn bishan waxa weeye aan ku tilmaami karaa. waxa kaloo khadrow meesha ku jira runtii isbedel weyn baa ku dhacay dhanka waxa weeye dhaqaale, hoos u dhac dhaqaale ayaa bulshada waxa weeye Kenyaanka ku dhacay, iyadoo dee guud ahaanba caalamka ay saameysay. haddana waxaad moodaa in si gaara oo khaas waxa weeye dadka Soomaalida ee ku dhaqan xaafadda Isli
diyaarinta macluumaadka warbaahinta muuqaalka ee layska arko waxa ay ka mid tahay shaqooyinka ugu adag ee ay wariyayaasha ka shaqeeya telefishinadu ay qabtaan waxaana jirtay saameyn ka dhalatay go'aanada ay dowladda Kenya ay ku soo rogtay dalka ee ay ku xakameynayso faafitaanka cudurka coronavirus oo ay toddobaadyadii lasoo dhaafay ay dareemayeen wariyayaasha ka shaqeeya warbaahinta layska arko. Foos Ibrahim Ciid waxa ay ka shaqeysaa TV-ga 5 ee magaalada Nairobi. Waxa ka mid ah in wariyayaashii goobo badan oo ay tagi lahaayeen oo ay warbixino ka diyaarin lahaayeen ama xogo ay ka heli lahaayeen mararka qaar waxaa dhacaysa inaysan tegi karin. Saameynta kale ee ugu weyn ee uu nagu yeeshay corona waxaa ka mid ah in xaruntii TV oo kale ama idaacaddii marka ay Islii ku taalo kuma imaan karo qofkii martida ahaa ee aad barnaamij ku ballansatay inaad ku wareysato ama waxyaabo kaleba aad ka doonayso inaad xogo ka hesho qofkaasi kuma imaan karo maadaama Islii aan laga bixi karin lana soo geli karin. tan kale dhibta ugu weyn ay tahay ayaa waxay tahay xaruntiiba mararka qaar inaad tagto ayaa kugu adkaanaysa adigoo u baqanaya dhinaca caafimaadkaaga sababtoo ah inta meeloodo aad sii marayso gaadiidka aad raacayso xarunta laftigeeda aad tagayso ama dadka jooga waxaad isleedahay mararka qaar ku gelaya shaki ah dadkani ma wada caafimaad qabaan sababtoo ah adigu guriga waxaad kaga soo tagtay dad iyaga caafimaadkooda ilaalinaya ee ku jira arintii stay at home oo aan guriga ka soo baxaynin balse adigu waad baxaysaa hadiiba naftaada kaliya aadan u baqaynin waxaad isleedahay guriga waad u soo laabanaysaa maxaa dadka jooga u keeni doontaa ee aan bixin iyagu naftooda ilaashanaya. Cabdiqaadir Cumar Cabdille oo isna ka mid ah wariyayaasha ka howlgala magaalada Nairobi ayaa sheegaya in inkastoo wariyayaasha ay kaalin weyn ka qaadanayaan wacyigelinta ka hortagga cudurka coronavirus uu haddana geeska kale cudurku saameeyay wararkii maalinlaha ahaa ee ay wariyayaashu soo tabin jireen. qayb ayaan ka qaadanayna inkastoo uu xakeen laftigiisa corona markaad fiilis qadarow waxaad moodaa in inagoo oo awalba qaxootinimo iyo wax lagu shaqeynayay in haddana mar kale uu isagoo nasii karantiiro oo saacadii macnaha la shaqeynay oo banaanka la joogay oo magaalada dhex maray inay kooban tahay in sidoo kale dadka isku imaan karin oo kale kulamadii dhici jiray ee raboodka laga sameyn jiray sidoo kale mararka qaar waxaa laga soo wareegi jiray iskuullada xafladii ay qabsan jireen oo kale waxyaabahaasoo idil ayaad moodaa in meesha uu ka saaray oo war ahaan ay wararkii bulshada loo tabinay ay soo yiraadeen hase ahaatee weli qayb ayaan ka qaadanaa in bulshada aan ku wacyigelino inay ka fogaadaan khatarta uu leeyahay xanuunka samareyka adduunka idil saameeyey ee coronaviruska. saxafiyiinta oo maanka ku haya sidii ay naftooda uga badbaadin lahaayeen khatarta bushiga halista ah ee corona ayaa waxa ay mar walba ku dadaalaan sidii ay bulshada ugu soo gudbin lahaayeen xogta iyo macluumaadka ay u baahan yihiin. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi. subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19, 25 iyo 49 mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba 6 iyo barka subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba 4 galabnimo. haweyska Washington martida microfonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19, 22 iyo 25 mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba 7 iyo 8 fiidnimo. Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dowladaha Masar, Imaaraadka Carabta, Faransiiska, Giriiga iyo Qubrus ayaa cambaareeyay ficilada dowladda Turkigu ay ka wado badda Mediterranean-ka iyo guud ahaan gobolka Bariga Dhexe. Warbixintan waxaa Qaahire ka soo diray wariyahayga Xuseen Cusmaan Saxnuuni. dowladaha Masar, isutaga Imaaraadka Carabta, Giriiga, Faransiiska iyo Qubrus ayaa walaac ka muujiyay xiisadaha amniga ee isa sii taraya ee dalka Liibiya iyo guud ahaan mandiqada waxayna ku sifeeyeen heshiiska dowladda Turkiga iyo xukuumadda caalamka aqoonsan yahay inuu yahay mid khatar ku ah nabadgelyada mandiqada. hadalkan ayaa ka soo baxay kulan dhinaca khadka telefoonka oo ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dowladahaasi shanta ahi kaasoo ay ka arinsanayeen waxyaabihii ugu dambeeyay
dambeeyey ee ka taagan badda mediterranean-ka iyo weliba dhibaatooyinka khatarta ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida gobolkani. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi ayaa dhaleeceeyey dhaqdhaqaaqyada sharci darada ahi ee dowladda turkiga ay ka wado aag ka tirsan dhulka jamhuuriyadda qubrus kaasoo xadgudub ku ah bay yiraahdeen sharciga caalamiga ah ee waafaqsan qaanuunka qaramada midoobay ee ku saabsan sharciga badda. warka ka soo baxay kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladahaasi ayaa sidoo kale lagu cambaareeyey sii socoshada xadgudubyada turkiga ee ka dhanka hawada dalka Greega oo ay ku jiraan duulimaadyada meelaha dadka ku badan yahay iyo dhinaca badda. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar, Imaaraadka Carabta, Faransiiska, Greega iyo Qubrus waxay kaloo ay ka wada hadleen isla markaasina ay cambaareeyeen qaabka dowladda Turkiga ay u maareyso muhaajiriinta jooga dalkeeda iyo sida sharci darada ahi oo ay uga gudbaan xuduudda ay la wadaagto dalkaasi Greega. dhinaca kale wasiirada arrimaha dibadda ee dowladahaasi waxay muujiyeen sida ay ugu xun yihiin kasii darida xaaladda iyo iska horimaadyada militariga ee dalka Liibiya ayagoo xusuusiyay dowladda Turkiga fulinta heshiiska Berlin ee ahaa in laga fogaado faragelinta arrimaha dowladda Liibiya. waxaan si adag u cambaareynaa faragelinta militariga ee Turkiga ee Liibiya waxaana ku boorinaynaa Turkiga inay si buuxda ay u ixtiraamto cunaqabataynta hubka ee qaramada midoobay isla markaasina ay joojiso qulqulka dagaalyahanada shisheeye ee ka imaanaya Suuriya ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasiirada arrimaha dibadda ee dowladahaasi. gabagabada hadalka ka soo yeeray wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar, Imaaraadka Carabta, Greega, Faransiiska iyo Qubrus ayaa lagu sheegay dhaqdhaqaaqyada ay wado dowladda Turkiga inuu yahay mid halis ku ah amniga qaaradaha Yurub iyo Afrika. haddaba Cabdi Yaasiin Yool oo ah saxafi ka faalooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko warka ka soo baxay dowladahaasi ee cambaareeyay dhaqdhaqaaqyada dowladda Turkiga. bayaanka ka soo baxay wadamada shanta ee kala ah Masar, Faransiiska, Qubrus, Imaaraadka, Greega ee ku aadan dhaqdhaqaaqa Turkigu ka wado gudaha dalka Liibiya waxaan u arkaa waxay ka cabsi qabaan isku ballaarinta Turkigu uu ka wado badda Mediterranean Sea iyo taageerada ay dowladda Turkigu la garab taagan tahay dowladda caalamku aqoonsan yahay ee Tripoli oo muddooyinkan dambe aad moodo inay ku adkaanayso dagaalada ay kula jirto Khalifa Haftar. say la soconaba Turkigu wuxuu yiri oo ku hanjabay inuu tallaabo ka qaadi doono Khalifa Haftar oo loo tiriyay in wadamadaasi ayagu ay taageeraan dhaqaale ahaan iyo military ahaanba. wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha Masar, Imaaraadka Carabta, Faransiiska, Greega iyo Qubrus ayaa ugu baaqay qaybaha ku dagaalamaya dalka Liibiya in ay ilaaliyaan xabajoojinta inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. arrimahan ayaa imaanaya xili wali ay taagan tahay xiisada iyo dagaalada ka socda dalkaasi Liibiya oo ay isku diidan yihiin ciidamada militariga ee uu hogaamiyo Generaal Khalifa Haftar iyo dowladda caalamka aqoonsan yahay kuwaasi oo ku loolamaya hogaaminta dalkaasi Liibiya. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira. haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah qasiidooyinkan idinku talagalnay bisha Ramadaan. ifkuna waa galinaadkiye hasigna hilinka toosan waxaa la helay
halkana howlba dambayse su'aasha habboon ilaahow jawaabteeda nagu hagaaji marka mawdku ku haleelo ay naftu halaa ku dhaafto hoggiya lagu dhigayailka habaska lagugu boobo halkana howlba dambayse su'aasha habboon ilaahow jawaabteeda nagu hagaaji intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa idaacaddayadii subaxnimo idinla socodsiinayeen cashe ibraahim caashacuudi anigoo ah maxamed cabdi iyo dhinaca soo saaristoo inoo joogay bashiir abiykar intaaynu dib u kulmi doonno sidaas iyo ramadaan wanaagsan halkana howlba dambayse todobada adu hadhaysay halkooda rabowna gee